war degdeg ah ugu yaraantii 10 qof oo shacab ah iyo 4 ka tirsan ciidamada labada dal ayaa ku geeriyooday dagaal xoog leh oo ka soconaya xuduudda u dhaxaysa wadamada Pakistan iyo Hindiya. saraakiil sarsare oo u hadashay wadanka Hindiya ayaa tilmaamay in duqeymaha xoog leh ee labada dhinac ay isweedarsanayaan dhinacooda ay 6 qof oo shacab ah iyo 3 ka tirsan askarta militariga wadanka Hindiya ay ku geeriyoodeen tan intii uu socday iska horimaadka labada ciidan. dhinaca kale militariga Pakistan ayaa iyaguna waxa sheegeen in 4 qof oo shacab ah iyo mid kamid ah askarta wadanka Pakistan dagaalku uu ku geeriyooday. 22 qof oo kale oo labada dhinac ah ayaa la warinayaa in ay ku dhaawacmeen intii dagaalku uu socday. waxa uuna dagaalka si rasmi ah uga qaraxay magaalada la yiraahdo Neelam oo ka tirsan Kashmir qaybta ay Pakistan maamusho. mas'uuliyiin ka tirsan gobolka Kashmir qaybta ay Pakistan maamusho ayaa muuqaal baahiyaha Al Jazeera u sheegay in dhibaatadaasi ay dhacday isla markaana ciidamada wadanka Hindiya ay iyagu rasaasta bilaabeen. dhimashada iyo dhaawaca ayaa la soo warinayaa in marka ka dambeysa ay sii kordhayso iyada oo magaalada Neelamu village la yiraahdo ilaa iyo hadda wararka qaar ay sheegayaan in labada dhinac ay gantaalo isweedarsanayaan. u dhashay wadanka Hindiya si degdeg ah ugu yeeray kuwaas oo ku sugan gudaha wadanka Pakistan isagoo sheegay in ay ka jawaabaan rasaasta xoogan ee ka imaanaysa xuduudda wadanka Hindiya. Pakistan waxa ay sheegtay inaanay ka aamusi doonin gardarada ka imaanaysa xukuumadda New Delhi. labadii bilood ee la soo dhaafay ayaa labadan dal waxa ay si weyn markaasay ugu muransanayeen xuduudda u dhaxaysa dalalka markaasay Hindiya iyo Pakistan si gaar ah gobolka Kashmir. dhinaca kale waxaa jirta in dhawaantan xukuumadda New Delhi ay dishay mid kamid ah jabhadaha ugu muhiimsan ee ka dagaalama gobolkaas mas'uul sare oo ka tirsanaa iyada oo ku macnaysay in jawaab uu ahaa dilkaasi saraakiil sarsare oo ka tirsan xisbiga ra'iisul wasaare Narendra Modi oo gobolkaas lagu khaarajiyay. Imran Khan oo dhawaantan hadlay ayaa waxa uu sheegay in falalka gurracan ee Hindiya ay ka fulinayso gobolka Kashmir aanay sheed laga daawan doonin isaga oo sheegay in militariga wadanka Pakistan ay diyaar u yihiin in talaabo ay qaadaan haddii xukuumadda New Delhi ay sii kordhiso cadaadiska ay ku hayso dadka muslimiinta ah ee degan gobolka Kashmir. dadka maanta dagaalka ku geeriyooday waxaa kamid ah nin da'diisu lagu sheegay inuu ahaa 55 sano jir oo la yiraahdo Maxamed Bashir sida ay wararku sheegayaan sheegay in ninkaasi u geeriyooday rasaas xoogan oo ka timid dhinaca wadanka Hindiya. meel ugu yaraan 80 kilomitir u jirta caasimada gobolka Kashmir qaybta ay Pakistan maamusho ee la yiraahdo Muzaffarabad ayuu dagaalka ka soconaya. waxaa la warinayaa in dadka dagaalada ku dhaawacmay ama duqeymaha labada dhinac ay isweedarsanayaan markaasi ay sii kordhayaan. ilaa iyo hadda ma jirto labada mas'uul ee ugu sareysa dalalkan oo si rasmi ah uga hadlay dagaalka xuduudda ka qarxay ee u dhaxeeya Pakistan iyo Hindiya. sanadkan aan ku jirno waa markii saddexaad oo labada dal ay duqeymo xoog leh isweedarsanayaan. tan markii talada wadanka Pakistan uu la wareegay Imran Khan waxaa sii kordhayay khilaafka u dhaxeeya xukuumadaha Islamabad iyo New Delhi. Imran Khan waxa uu wacd ku maray in Hindiya aanay sii wada karin daadaansiga ay ku hayso dadka muslimiinta ah ee maamulkeeda hoostaga si gaar ah gobolka Kashmir. waxa uu ku dhaliilay in maamulka New Delhi uu yahay mid cunsuri ah isla markaana dhibaateynaya dadka muslimiinta ah ee maamulkooda hoos yimaada. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena saar subscribe si aad u daawato xog walba halkan soo dhigno.